ورحمة الله وبركاته كسودو هذا خالد بالعميرة مركا غوريا دوي اي سكبرايب ستار لايك كومنت كبخي اصحابته الى سocda qaybta labaad daawada oo daran soo dhigay qaybtiis labaad rabaa inaan soo dhigo mar walba la socda daawadaas meel walba uu fiican yahay sidii gaaska dhiikarka sokorta bawaasirka wax walba meesha la socnay la socda asxaabta mar walba wax walba oo barnaamij walbana meeshaan soo dhigeena insha Allah ilaa qolku taalo fiiriyo And Fountain of Life waxaa laga sameeyay geed Norway ka baxo waxaana la ogaaday geedkaas 32 sano ka hor markii baaritaan lagu sameeyay Norway scientists-yaasha joogaan waxay ogaadeen markii Norway sidaad ogtihiin waxaa baraf aad iyo aad u daran baa ka da'o marka waxaa la ogaaday waxaa la arkay markuu baraf ka da'o fayadhowrka aadmiga waa furaha nolosha la'aantii ma foosaan fallaadhaha xanuunada goob lagu furdaasho freesha lagu furay lafoo xanuunkiyo xumadii asiibtaa xaalkoodii lagu helay kurbadoo jirkaagii kansalkii uu sabab u yahay isagana waxa ka qabtiraysa Fountain of Life bulsho badan oo goobtan ka adeegatayna ay mahdiyeen xarunta dawada dabiiciga ah ee Fountain of Life xaruntani waxay ka qabtiraysaa oo ay ka daweynaysaa xanuunada kala ah lafa xanuunka infekshanka jirka madax xanuunka bararka kansarka ragga iyo dumarka khalqalka caadada dumarka iyo kumaha oo daciifa daadashada timaha rag iyo dumarba xanuunka sokorta macaanka gastriga difaaca wadnaha babaasiirta xasaasiyada burooyinka cholesterolka subaga beerka sidoo kalena dawadani waxay kor u soo qaadaysaa awoodda ragga oo ay xoojinayso bulshooyin dhamaantiin yalla moogaanin xarunta dawada dabiiciga ah ee Fountain of Life waxaad dawadani ka heli kartaa dunida meel walbood ka joogtaan haddii